soo dhawow waan ku dhahay mideeda kale hooshaan ku dirsada allah hadda ma la qaban sidaas wax u jira ii sheegba annaga mar walba kharash waa bixi jirnay wax waa qaban jirnay balse hadda kadib wixii kharash dhankiina ayaan ka dhigaynaa hal mar oo keliya alaabtan bakistaan hala geeyo kadibna wax walba annaga dhankeena ayay ahaanaysaa teeda kale waxaad ogaataa mar walba anaga diyaar waxaan u nahay cadowgeena inaan la dagaalanno meel walba ay joogaan war badan wax ma tara natiijan u baahanahay ma kasino bakistaanna dagaalka socda ma arkino inaad demisiyaa loo baahan yahay haddii kale waad la socotaa dhibaatada ka imaayaysa waa yahay wax walba aniga igu halay باكستان waxaa loo qorsheeyay laba dhinac loo kala qaybay labadaas dhinacna wax kala maaha bari iyo waqooyi leeyahay dhanka waqooyiga isdiyaarin fara badan ayaa ka socota laakiin Pakistan ma ogeyn sirdoonkaas oo sheegay ka warnay sheekadaas bariga Pakistan hub fara badan laga dejinayaan wax walba meeshaas tartiib ay ugu socdeen باكستان dadkooda baabiinayna dhaay kursi dil dhac boob kursi xitaa ha kareemin hal wada lagu istaaji karo wadadaasna wax kale ma ahan dhammaantood in la mideeyo masaakiinta meeshii wax looga qaban lahaa jeenaba xogta ka gadan ka warnay dhammaantoodna meesha lagu baabiiyay بريهي يا طاري نجس هلو بنغالي ولا قبتي مع لابتي سما لا قبتني هاتلي دم وسو علي كرتاني شجرته دعاء مياه تركنا मेरी जिक्र का जुबान भी जुबान रखना صلي بانو وريا دريس كان أدوسيتا مياد هيسكو خالص أنا إيشك إجر حرنا قتلي هديب أي دعوة إنها هيس خالص وإنها هيس علن كاغا خادا حتى هدي أي دعوة إنها هيس أخوان وحد هذا أنا ودن كي باكستان قول إيجوبني ما ين أوريجينايا أنت إنها هذا ضمير كاغا مكسين وين كيف الطريق وريا نعسي يحمي ودن كاغا مركز جلات أي قدام هذا كلا إلو بكرتا واحد كوفان تمركز هذا ستنا وحيابها كلوات المامسها إجر حرنا قتلي هذا اللي كان كوسو قابيو ما أنت كدي بحال غربة هيس علن كاغا إنها تبرتو ويحتري وحنكويدينا أنا إن كي هندي قاعد تقبلني سي halkana lagu hayaa taliya dhinaca soo jooga afkiisa ma kala furayna ninkaas si kasta loo cadaaday taliya wuxuu sheegaya ma jirto maxaad ka wadaana si xun baa loo jirdilay doqomadan hindida ayaan la yaabanahay bakistaan ayay imaanayaan kadibna waa la garaacayaa baxayikeen taliya kumana fahmin warqadda bedelkiisa ayaan ku wadaa taliyaha dibidda ayuu ku maqan yahay intuu ka imaanayo waa inaad sugtaa taliyaha amarkiisa amar ka sareeya ayaan wadaa dhaqsa amarka fuliya waya taliya taliyaha wuu soo laaban rabaa wuxuu rabaa alaab inuu keeno alaabtaas dejinteeda la isku diyaariyo sida ugu dhaqsiyaha badan سيدايا ما حد قربتينا انت اللي ودينا ورا حالك غدا سيدايا ورا سيدايا صور يا صور يا رخاتش صور سيدايا ورا ما حالك غدا انا يا خالد
bangalaha baabuu madax xabadha loogu dhufto bangalaha baabuu nafis qaada ayaan ku leeyahay anigu waan ogaa inaad iimaanaysid war u kaadi xaggee ii waddaa cajaladda ayaga ayaa hayo wax walbana way ka muhiimsan tahay warheedh adiga ayaa tahayna mideeda kale xerar ciidanka maxaad ka samaynaysaana marka hore adiga waxaad ii sheegtaa xarunta ciidanka bakistaan kan muxuu ka samaynayaana haddiiba ay dhacdo inaad qof dilayso si geesnimo leh u dil sida libaaxi oo kale aan ku weydiiyey xaggeed ka socotaa waaye waddaniyad daacadnimo geesinimo intaba bakistaan ayaan ahay adiga xaggeed ka socotaana adiga hindi miyaa tahayna maya bunjaab okaadi muwaadin hindiya ayaa tahay weliba waxaa lagu soo diray muslimiinta bakistaan ku nool hadalkayga soo sax maaha beella ayaa tahay si wanaagsanna waad ii aqoonsatay aniga hooyaday halkan ayaa timaaday nin bakistaan ah waa isjeclaadeen kadibna anaa dhashay farac ka faracna meeshaan ayaan deganayn sharciga waddankayga wuxuu dhigayaa qofka qaladaad noocaan haddii uu galo si toosa in loo toogan karo hadda haddii aan ku toogto kaale maxaad samaynaysaana diyaar ayaan u ahay hal mid aan ku weydiiyey dhankaad ka socoto waa dhankeena hey waryaa aniga awowey halkan ayuu ku dhashay aabbahayna ciidan ayuu ahaa xataa adeerkayga ciidan ayuu ahaa sawiradoodana waa kuwaana waad fiirin kartaa reerkaygoo dhan wada ciidan ayay ahayn qofkii ugu dambeeyena waa ka sawirkiisa taliya adiga inta soo dhowow cajaladda qofkayga ilow waa kana xaggaygana muhiim ayay ka ahayd middaas ayaan u soo laabtay macajalad baad tiri haa cajaladdaas muhiim ayay ahayd tii heesaana ma ahayn yax ninkan heesaha wuu ku wanaagsan yahay weliba kuwa qadiimiga ah taliya runtaa weeye nagaa musdaqanya taliya waa tanaa waad mahadsan tahay mar dambena khalad noocaan oo kale ha gelin waya tali sideedaba aniga ma jecel sharciga inaan jebiyo waraaqii iyo waxyaabihii oo dhan asiga ayaan ku wareejiyey ansaawi aw xagee ka baxan taliya waa kan kabtan khabarbiir ayaa la yidhahaa ciidanka bunjaab ayaan ka tirsanahay eejin isxaaq barasho wanaagsan mid la mid ah taliye ay dhikaarkaadaad ka tegaysaa waad mahadsan tahay
duqa waxaad ogaataa 14 agoosto feestada la qabanayo adiga ayaa ka hesi doono waya tali ديف تالي halista meesha noogu imaan karto maxay noqon kartaana tali bariga Pakistan anaga wax wanaagsan noogama soo socdo airportka Maniyaar ku yaalana dib u hagaajin weyn ayaa lagu sameeyay intaas oo kaliya kuma eke dib u haween kale ay sameyn rabaan Rajpur iyo Sidhpurna waxay rabaan xarumo kale inay ka sameeyaan tali arinta lama filaanka nagu noqotay ayaa waxay tahay dadkan 10 runway ay hal mar sameeyeen waa maxay ragga sadafkii kale yihiin ayaga bariga Pakistan isbedel ku imaaday ama India ay rabaan inay weeraraan weerar ma idhaahday iyagaaba raba dagaalkaas inay isku diyaariyaan xaaladdan mid ay dagaal ku soo qaadi karaan kula taana maya kuma soo qaadi karaan haddii sidaas tahayna walwalna looma baahna taliye adiga Pakistan awoodooda ha yareysana si kastay awoodooda u yartahay aniga waxaan ka huwa maalin maalmaha ka mid aan ku dhahay Pakistan inay Hindi weerar ku soo qaadayso bawasti bariga Pakistan ayuu ka imaaday ninkan hadda ma garata lacalla haddii ay jirto halis kale ama sifooyin kaleba annaga waan diraynaa si uu hoolaha kale noogu soo qabto waan ku salaama taliya nin ayaa xarunteena soo galay ciidankeena sirdoonka arintaas lama socdaan sidee ku dhacday arintaas inaan wax ka ogaadayaan rabaa taliya sirdoon hindi ka tirsan adiga maxaa samaynaysay kalan taliya anaga baaritaan ayaa wadnaa askari mid ogow xabadda intii qoriga ay ku jirto ay qiimo leedahay mar haddii ka soo baxdo qiimo ma lahan muddo 10 maalmooda haddaba waa muddo 10 maalmooda intii ma doonaya inay ogaato dhaqdhaqaaq walbo anaga aan samaynayno haddii kale qorshaheena hal bacad lagu lisay ayuu noqonayaa haddaba middaas maankaaga ku hay diyaaradan aad arkayso waa tii Falastiin laga afduwanayay shirka dhacdartiisa Falastiin xorriyaddeeda ayay u dagaalantay dunidu idilmidaasna waa laga ogaaday markaas kadibna haddaba taliye aniga waxaan soo ogaaday jey waxyaabaas inoo diyaarinaya oo noo baahan yahay inuu wax sameeyo dagaalanka xorriyadda Kashmiir wuxuu u baahan yahay dunidu idil in laga ogaado sheekadan Falastiin aad la wareegayso waxaad ogaataa xaaladda inay ku sii xumaanayso adiga 10 bari ugu horeysa ma doonay hindi wax baartaan iyo waxyaabo mid lagu sameeyo aan ku sheegay haddaba ninkaas Pakistani hindi wax ka galay habeeraatay ma jiraan wuxuu u baahan yahay xorriyadda Pakistan inuu dhageysto lagama yaabo haddaba waa inaad celisaa adiga mana doonaya say qof inuu garab weydiisto wax yar idhageyso goorma timidna maba ka arkin hay libaaxiga sidee tahayna waa fiicanaha taliye ilaa haddana waxaan sugayaa kiiskayga igu horreeyay wax yar waa ilaa waraallah qabso macmacaankan macmacaan miyaana xaaskayga ii soo dhiibtay ur ayay leedahay haddana sidaasoo tahay caloosheeda ayay ka fikiraysaa in qof nasiib leh ayaa tahay maya taliye mar haddii ay ii suuro gashay adiga inaan kula shaqeeyo markaas ayaa noqonaya qof nasiib leh hadda laakiin maya taliye galbeedka Pakistan fariinana ugu maatay
ya 10 maalmood haye 40 diyaaradood ayaa jayna leekiin rabaa haa taliye 10 maalmood kadibna anaga waa nala soo weerari rabaa marba dadkan jayna haddee la jiraan waan huwa wax inay dhacayaan bariga faransa taas wax wanaagsan maaha ciidanka meesha diyaargarowga ku samaynayo bakistaan oo keliya maaha ee waa anaga darteena taas macnaheedu waxay tahay wax walba inay soo diyaargaroobayn soo maahane asaasataa diyaar manihin taliya 10 maalmood oo jaanis ayaan haysanaa weerarkii la qorsheeyahay taas annaga diyaar ma u ahayn bariga bakistaan iyo xuduudda jayna diyaargarow saa'id weynaan ka socday ciidankoo idil galbeedka bakistaan ay imaadeen kuwa cadowgan bariga bakistaan ay imaadeen galbeedka bakistaan diyaaradii yaalay waxay rabeen inay hawada soo maraan si u imaadaan bariga bakistaan bakistaanna waddadaasa u furneed waxay rabeen dadkood inay soo dhawaystaan weliba kuwa ka maqnaay diyaaradaas markay meesha imaadaan bakistaan iyo jayna waxay rabeen annaga inayna soo weeraraan waddankana waxay rabeen qalqal inay geliyaan annagana dhibaato weyn inay gaarsiiyaan shirqoolkee damacsanaayeenna waan ogaana annaga diyaarinta imisa bilood ayaa kugu filan 10 bilood oo keliyata laakiin taliye yani ijeena sidaan barigeena ugu celinayna noo sheega bal taliye haddaad ii ogolaato dadkaas waan celin karnaa laakiin sideena hawada ayaan ka xiraynaa intaas wixii ka dambeeya anaga waan isdiyaarinaynaa ayagana dib ayaan u celinaynaa si wanaagsan waanaad ii fahansiisaa hawada dalkeena annaga oo keliya ayaa iska leh marba haddii ay damcaan raggaas inay annaga hawadeena soo maraan waxay ku qasban yihiin in annaga oo keliya ay amar naga qaataan annaga hawada ayaan ka xiraynaa kadibna cid noo soo gudbaysa ma jirto haddii basaas ay tahay markino unaku wax amar aan siiyahayna ma lahan taas wax fudud ma ahan taliye marka loo fiiriyo heshiisyadii hore ay galeen wasiirkii hore laal bahaduur shaah iyo dadkii kale oo baashaan kula jiray marba haddii ay saas tahay waddadaasna waxay furan tahay markii dagaal lagugu soo qaaday cadowgiina waddankiina ayay soo galayaan maxaan ku samaynaa waaye taliye way soo socdeen laakiin dagaal sawdayan kale lama kala oga taliye sabab la'aan haddii aan hawadayna xirno waxaad ogaataa dhammaan indiya dhibaatayna dhexda ka gelayso anaga in la soo ugaarsado waxay rabnaa naga sameeyaan ma ogolaanayno taliye marka hore hawada in la xiro way adag tahay laakiin anaga waddo kale looma furno deefi dhegayso fikirkan hawada waddo waa inaad joojisaa adiga arrintaas waxay u baahan tahay waddooyin fara badan in loo maro laakiin taliye aamus ayaan ku dhahay dhibaatada noogu soo socoto sida ugu dhaqsiya badan waa in loogu saara anaga taliyow akhbaar fiicanaan kuu hayaa hindiya awoodda inagu soo weerarta ma lahan ciidanka sirdoonka akhbaartaasay noo soo sheegeen haddii ay sidaas tahay hawadeena waxaa mari karo diyaaradaheena bariga u socda ee bakistaan weliba iyagoo ku duulayaan si amni ah taliye waa kaa soo daha u malaynaya wax yar sug haye kiiskaaga cusub ma soo heshe laakiin adiga wax walba sidee ku qiyaastaana taliye hambalyada aad sheegaysa maxay taha taliye runtii maanta aniga farxaddeyda mid aan halkan kusoo koobi kara maaha barotokool inaan guulaysta ka soo qaad taliye macmacaanka cunay maxaa suge shaqada maxaa wayna shaqadeyda taadoo kale maaha ee shaqadeyda waxay tahay indhahale dadka inaan ku hayo yaa indhaha ku hayne waa wiil 17 jir ah kashmiir ayuu ka soo jeedaa qaasim qurayshi ayaa la yidhaah haddana waxaan malaynayaa inuu bilaabo dadkaas inuu la shaqeeyo muxuu sameeyeyna bistoolo ayaa lagu qabtay 17 jir ayuuna bistoolo qaado ku bilaabay aniga hortaada fiiri laakiinse mudane ma kula tahay ninkan inuu hawsha uu qaban karo ayagoo kale ayaa hawsheena qaban karo bannaanka way ka adag yihiin laakiinse gudaha aad bay uga jilcan yihiin riid xabadda waa ka baxsatay asaga ayaa hawsheena qaban ururka cusub ee bakistaan ayuu madaxu noqon rabaa haddana ururka xurriyadoonka ee kashmiir ayuu ka tirsan yahay weerar halisana way qaadi rabaan taliye kashmiir sida falastiin waa inaan u xoraynaa walaalkayga qaasimow midaas ayaan kuu xil saaray walaalkayga maqbuul wax walba waan samaynayaa aniga keliya adiga amar ma isiin kartaa
marka hore wuxuu rabay raajiyo wiilka u dhalay Indara diyaarad uu saarnaa inuu afduubto waqti xaadirkan booliska ayaa gacanta ku haya dhibkiisa maxaa waayana tali horta qaasim marka hore laba qof ayaa la socotay oo qorshahan la fulinaya haddana qaasim booliska ayaa gacanta ku haya waxayna rabaan ilboorka inay geeyaan si isla mar ahaantaas burcadda meeshaas joogta uu aqoonsado kadibna gacanta loogu soo dhigo hadda booliska ma yula joogaana marle dadkaas gacanta lagu soo dhigo markaas kadib soo maahan diyaaraddaas afduubkii lala damacsanaa waa laga badbaadinayaa dadka noocaan oo kalena markii gacanta lagu soo dhigo meeshii loo badnaa ayaa loo diraa waad mahadsan tahay akaala adi maxaa kaa qaldanne arrintan labadan hore uga hadallaan ku dhahay waddanka hawadiisa in la xiran macquul maaha midaas waa suurtagal taliye sidee laakiin bakistaan ayaa samaynayso sababta u samaynaysa maxay tahay marka bakistaan annaga ayaa ku kalifin inay sameeyaan akaala adi ma waxay kula tahay bakistaan qabrigooda gacanta igla inay ku qodahayaan ii sheeg aniga waan aaminsanahay midaas qorshaheedana waan hayaa horta warkaa ku hadloo sida adiga in la dhaho aaday u fududahay laakiin in la qabtaa adagaan ku leeyahay marba haddii la rabo hawada in la xiro qofka keliya xiri kara waa wasiirka difaaca ilaa iyo haddeertan aniga waxay ila tahay horta qorshahaaga qabyo inuu yahay tali dad badan ayaa anaga waddankeena u soo halgamay dadkaas qorshayaashooda markay keenayeenna wax qabiil lahay habeeraata maysa jirin marka maxay tahay qabyadan aad sheegayso aniga hadafka aan leeyahay marka aan rabo inaan gaaro maxay tahay sababta xaggaaga igu noqoto qabyo taliya midaas ayaan rabaa inaan ogaado maxay tahay sababta ilaa iyo haddana ma fahmin aniga taliya qorshahan aniga wado waxaa lagu badbaadin karaa bariga bakistaan iyo annaga waddankeena marka ogolow hal mar arrintaasna fasax ayaan kaaga baahanahay adiif adima waxay kula tahay bakistaan inay doqon yihiin maya taliye laakiin anaga ayaa ku kalifina inay doqomo noqdaan howlgalka noocan oo kale ah waa howlgalkii ugu yaabka badnaa ee dunida laga qabto muddo 9 bilood inaan kusoo gabagabaynana waa loo baahan yahay taariikhda sidaan oo kale ayaa loo sameeyaa dalhii rakaabka u socda waxaan ka codsanaynaa in ay soo xaadiraan mar labaad ayaan idinkugu celinayaa dalhii rakaabka u socda ha soo xaadiraan fadlan waa idin sugaynaa aadaad u mahadsantihiin waa inaad xaqiijisaa shaqadaadana sida ay tahay waa inaad u gudataa xaggiistaag dhaqso tali intaan ilboorka joognay 3 diyaaradood ayaa meeshan ka kacday midda koobaad waxay aaday jindikaar midda labaadna waxay aaday buuni tan saddexaadna weli ma kicin oo galabta ay rabtaa dhanka Delhi inay aado weli ma aadan arkin miya miyuu gubtaa midaas dhankaas waayay si fiican u fiiri sidoo kale halkaas fiiri bal maya taliye si walba u fiiri ayaga kuma jiraan ma hubtaa midaas waa kaa hawaa taliye meeshaan kuma arkin ayaga dhibaato badnaa inakeen qaasim dadka wuu soo saari la'yahay laakiin asaga ayaa noo geynaya dadkaas waryaa kaalay halkan soo istaag taliya muxuu qabtaa hawshaada waa inaad gudataa haddii aad isku daydo inaad luqaafan oo keento
waxaad ogaataa inaan ku burburin doono adiga taliya inay aaminto isku day waan ka hawaa diyaaraddaas afduub in lagu samayn doono goordhow qaabkiisa markaan fiiriya dadka inuu doqomaysan rabaa u malaynaa waa u egyahay mana u eko beris waxdii ayaanu balanaa qaasimo sugba adi shaqii waxyaabahaasa bilowday awaaweynata markaa mas-uula noqotay waajibaadkiina mar hore haddii aad guda leedeen aniga sida maba liiga baahnaa leen laakiin sis wax u jira see waxu jira maad ii leedahay meeshana mar walba intaad soo fariisataan ayaa balaayo ku cabaystaan annagana dhibaato iyo rafaad ayaan maraynaa iska wada hooshaada laakiin hoy sugba inta socotaa anagu daadaan ku jirna maarabta abito inaan doolin yaaq maxaa kaasiye maanta fursadda sidaan inooga beerdirooday beri ninka qaasin allaahi wuxuu samaynayo iyo dadkuu la kulmayo intaba waa inaan ogaanaa annaga kashmiir waa niman laakiin booliska meeshaan jooga wax walba way ogaayeen saasay tahayna ma awoodin inay annaga wax garabana siiyaan ulajeedkiina wuxuu ahaa qorshaha qaasin inaan ogaano ama aan ka hortagno hal mid sameeye asiga dabagal ku sameeye hayo quruxleedeeda kaal meeshaan imoobo maanta intee u soconaa mataqaanaan bakistaan ayaa aadeena see kulata macantadeeda waa ay faraxsantaa soo maahan subax wanaagsan jambo dadka aadaya waxaa looga baahan yahay albaabka hortiisa inay isku soo xaadiriyaan mar kale ayaan ku celinayaa dadka jambo u socdo ha isku soo xaadiriyaan albaabka hortiisa taliyahu qaasim ana soo qabtay laakiin dadka kale afduubayaasha wax macluumaad ma kaaga soo helin waa ka xumaya maxaa soo bikaraa ii sheegbo meeq mara fiirseena ninkan waxaa umaleeyaa nin waalan inas yahay nin fiyo waad is'aalaya meesha mabana keeni leemo usoo weelaya maxaa sameynaya ii sheeg baad waagnaya
एक्सक्यूज मी सर, बेल्ट बांध लीजिए। जी कौन सी? माफ कीजिए, पैंट की नहीं, प्लेन की। जी जी, मैं भी वही सोच रहा था। waad mahadsan tahay waryari filinkan 5 sano ka hor buu ahaa meeqa jeer bad fiirsanaysaa dee maxaad ka galidinka shaqadiina qabsada jacbas waa kan waan waash mujadido inta jeer de filinkaad fiirsatay adigu kuma wantoomi miyaa idinka maba laga yaabo dareenkayga fahantaan shoodhaagii yara waxa la doonayaa anaga xitaa dareenkayna inaad fahanto ma halkii filim umbad ku ceshinaysaa dee wax muhiim ayaan rabaa inaan kuu sheego howlgalkan diyaarad waaye diyaaradda markii aad gudaheeda gasho kabtanka xaggiisa ayaad tagaysaa meeshaasna waxaa ku yaala qaanad yariisa markaad adiga gudaha gasho waxaan kaa rabaa howshaada sida ugu dhaqsiyaa badan inaad u qabsato qaybta dambe diyaaraddan albaab ayay leedahay taas macnaheedu waxay tahay deji gacantaada qorsheena inuu hagaaga ma kula tahayna sidaas darteed ayaan u baahnaaba arrintaa inaan kuu fahansiiyo mid waan helnay kan adiga dabagal ku sameeye kan kalena aniga ayaa raadinayo waayaha taliye aryaari ma degtid orda shoodhaagi deg baan ku leenay mise waan ku xambaarnaa iyaalka ayaantii sheekadiisa caali ma aanan ku sakaasi ka war leh ku jiraan kuwan sac wali ayaanti waacid gurigoo degan yahay waan soo ogaada taliye magaciisana cusmaan ayaa la dhahaa waana qaasim walaalkiisa haddana intaasoo kaliyaan soo ogaaday qaasim meeshaas filan inuu fiirsado uma tegi jirin meeshaas wuxuu u tegi jiray naqshadda diyaaradda inuu tuso qorsho oo keliya maaha waa xorriyaddii kashmiir aan ku heli lahayn midkana aa arkaysid wuxuu ku fudeynaa in diyaaradda hawada sare aad u qaado kanna marsho waaya dhaadhan doqon waaxid marka hore wax baranoo kadib la diyaarad doole aniga ha igu fududaani qaladna inaa iga gasho ha isku dayin haddii kale aniga waxaan ku tusaya awoodda aan leeyahay nacas iyo xun kama ku tusa awooddeeda naga tag halow indiya ha noolaata hadda ma gandhaa baa tidhi macnaha dib u habeen baa laga wadaa halis baa jirta waayaha taliye anigaa wax walba soo gabagabaynaya gandaah atar weeye
tali deefert wixii dib habeen anaga diyaaradda waan ku sameynay laakiin kuwa afduubayaasha adigu wax ma ka ogaatane maya tahay mid ka mid ayaan gacanta ku haynaa midka kalena dabagal ayaan ku haynaa awoo 5 maalmood inay noo hartay 5 maalmood wixii ka dambeyn wax walba dhici karo maqbuul walaalkiisa suuqa ayuu joogaa adigana waad u tagaysaa kadib warqadda markii aad u dhiibto bistooladda uu haya ayaa ka soo qaadanaysaa bistoola ah tig 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 haa bistooladdu ay tig 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 ciyaar khataraan ciyaaraynaa asfaano wax yaroo qalada ma samayn karno ciyaartaas qaabka loo ciyaari lahaa filinkaa kuugu soo tusay haddana iyadoo laaf ayaan ku tusayaa halkan soo fiiri qolkan aad u jeeddo kabtanka ayaa ku jiro sidaasay taa adiga bistoolada ayaa wadataa fiiri mid samee ii soo qabo midkaas xagga yaalo anigana halkan ayaa joogaa markii aad kabtanka agtiis tagto bistooladda ayaad madaxa ka saaraysaa wax walba aniga kugu amray waa inaad samaysaa markaas qorshaheena markii uu noo hirgalo markaas codkeena xorriyadda waxaan gaarsiinaynaa dunidoo dhan waana maqashiinaynaa waa balan haye dhaqsahe diyaaraddaas ayaan anaga ku soo ciyaaraynaa isboobsii marka war ciyaar ma ahan ee waa afduub la soco taliye hawshan sii u fuliyaan meesha meel ka fiican ma waayeen midka kalena waa kan booliska ayaa dabagal ku hayo ciidamada qaska meeshan way u malaynaa sidaas darteed ayaa loo soo xushaan u malaynayaa laakiin ninkan gacanta haddii lagu dhiga qorsheena way u dhammaanaysaa adiga qaasin indhaha ku hay أحمد شريف عيدني سجار كان كمية كشمير نوع كتر سنة
istaag hooyaa. halkan ima halkana jooga kale awarsi jasa awartina firi awartina وما سنتي هادير تنزيل بحي هالو ديار هنا هي تلي اهو شكل waddankayga waxaan u rajaynayaa guul inuu gaaro guul baan doonayaa guul iyo gobonnimo meeqay ahaayeen ii sheeg dad badan ma ahayn qaasim ee keligiis ayuu ahaay keligiisa haa walaal asiga wuxuu igu dhahay sidiinoo kale ayaan ahay kashmiir ayaan u shaqeeyaa jaana hadduusan asiga ahaa lahayn saacaddan way ii dhammaan laheeday walaalkeena maqbuul ayaa ka shaqeeyey arrintan ma xuma arrintaasi laakiin anaga bistoolo la'aan sideen diyaaradda ku afduwanaynaa ii sheeg beri waa inaad meesha timaadaa hana soo daahin markaana bakistaan ayaa guulaysanayso jaan kan tikidkiina waaybe waxaan oo dhan maqbuul ayaa inoo sameeyey anaga qorshaha muxuu yahayna diyaarad waddankana laga leeyahay miyaan abduwanayna si wax idinka yihiin mudane abaska waxaad ogaanaysaa cadowgeena annaga inaan qoorteena u dhiibanayno horta diyaaradda marka hore shacab way saaran yihiin laakiin howlgalka madaxiisa shacabkaas halis muu geli karno taliya diyaaraddaas wax shacab ha raacayaan dadkeena oo keliya ayaa raacayaan
bakistaan horta unuka qorshaana haddii ogaato kadibna weerar nagu soo qaada maxaa dhacay ii sheegay bakistaan nama soo weerari karto cadowga dhulkiis diyaan tagno hub la'aan dhimasho ayaan kala kulmaynaa aniga waxaan aaminsanahay bakistaan waxay u malaynaysaa waxyaabaha meeshaan ka dhacay oo dhan inaan anaga soo abaabulnay waana guuldareysanaynaa laakiin idinka waxaa loo baahan yahay inaad ogaataan shacab inaad tihiin shacab oo keliya ayaad ahaanaysaan bakistaan inaan tagno dibna aan u soo celinno waa anaga howlgalkeenna abaskay dhegayso unuka haddii khalad yar galna hadhow jawaabo idil inaana laga rabo midaasi hadduba ogtamo horta mudana afduubka waxaan ka dhigaynaa burcadnimo inaas yahay afduubkaasna sharcigeenna asdhiga ayaan ka dhigaynaa sidaas darteed bakistaan waxaan ku qasbaynaa hawadeenna diyaaradahooda inay soo marin kadibna bari iyo galbeedna sidaasaan ku badbaadi karnaa isleeyahay waayahay dhammaanteenna abbaxna muxumo laakiin dib see u soo naqeena marka hore meeshaas ayaan tegaynaa kadibna waddankeena ayaanu noqonaynaa abbaskay dhegayso sirdoonadaas dhankeena muhiim ayay keen yihiin inaan oo salaabtan waan rabnaa weliba iyagoo nabad qabo beri subaxii ayaan bixaynaa laahur ayaan tegaynaa hindiya ha noolaato tali qaasin iyo walaalkiisa waxay rabaan diyaaradda inay afduubtaan miyay amraysaa muu dhammeeyaa maya xaaladda way xumaanaysaa mana loo baahna xaaladda inay xumaato tali qof ayaa iiga garab siinaya sakandar hadalkayga si fiican oo dhegayso afduubkaas qaab walba aad ku joojin karto inta ku joojisa hadalkayga inaad maqashay ayaa ku horaan waayahay tali bal ana aragna iiga waxay samayn karaan السلام عليكم وعليكم السلام مدنه midkaan u baahna adiga ma heesaa hoo qabso waa waree inaba caadi ma ahayn midda saxda waaye mudane kan wax ka khatarsan adiga ma heesaana ii sheeg hal mara bamba sameey laakiin waa laga iibsan waaye dhib ma leh midkaas la isii laakiin maxaan ku samayn rabtaane waxaan samaynayaa waxaad ogaanaysaa marka aad raadiga shidid dhegtale u dhaweey ma kasti waan ku salaamay marwo waan kaa qaaday waxaan u baahanahay 3 tikidoo jumbo ah igra hal noqo mudane diyaaraddii jambo aadaysa way buuxdaa hadda nakaana mid kale aan soo fiirinaynaa waryaa istaagaan ku dhahe maxaad sugaysaa istaag waryaa nacasyo iyo tahawriya sababta u daba joogtana maxay tahay
سيدا دقنيو تيجي جنبه ayaan u baahanahay maxaa sugaysaa ma dhaqsatidna waayahay magacaaga ii sheeg jiilaale maana ayaa la dhahaa mahadsanid marow adigaa mudan jambo laba tikidaan ugu baahanahay diyaaradan jambo muu soxtoona haa okay ii gooy magacaaga ma ii sheegi kartaa ayaash eeko rashi eeko rakshaa waa mahadsan tahay subax wanaagsan jambo dadka aadaya waxaa looga baahan yahay albaabka hortiisa inay isku soo xaadiriyaan mar kale ayaan ku celinayaa dadka jambo u socdo ha isku soo xaadiriyaan albaabka hortiisa waaryaari maasigiya maya mudane qof ku jira ma lahan dhammaantooda uuf waaryaari si wanaagsan u fiiri fiiri mudane waa liigu dhegayahay isuliga waaryaari marka hore naga eegde intaa ka badan ma celin karo mudane waa ku baryaha igu qaado inkaar hele orod soo qaada naga tag soco qofka raadinayna dadkan kuma jiro idhegeyso walaal aad ayaan u cabsaday afiri bistoladina abi waatina oo qabso cabsi ayaan dareemayaa war adigana waa lagu qabanaa anigana sidoo kale waa lay qabanayaa kan bistooladii dhib ka tag meeshaan soco kabtan yara la noqo dhibaato ma leh waa iska caadi kabtan albaabka waa la xiro waadna mahadsan tahay waa mahadsantahay kiran dhibaato ma jirto soo maahan maya dhibaato ma lahan
هلو سيدي شعر كرة عندي ديار دياقي إلا ما يقفض ويا هديف عوي ديار دمك عدني حالة دم فيعنا يا قي حالة دم مدفيعة معها يا قي مع سمية هوي ولي ما نسميني مياه maya mudan ilaa hadda waa hallaysan yahay waan idin salaamay mudanayaal iyo marwooyin suumankiina si fiican uga taxadira mar dhow diyaaradda way deganaysaa jandhuuna waan ka degaynaa اسكجر عيد ساي كرت ما جرتو قفل بماشي سافر فريستو هاتيك انا حبط انا كل فنا يا وابان فريستو دمانتين هذا يا لك فريستو هذيك البلان ما حاجه لبان كلا دغا فريستو day inuu istaago ama amarkeena jabiyo waxaad ogaanaysaan qofkaas in ka waagsiiyeen waa faanteena oo malena hadaba yaa isku istaagin ay muu jeedin baashan waan u qarxina iska jira qof dhaqaaq kara ma jira haddii kale dhammaantiin oo wada dhimanaysaan amarkayga waa inaad qaadataa sida ugu dhaqsiyaa badan soco adigana xaggas tag oradan kore isfududay waryaada haddaba waa idiin sheegaya waxaan rabaa aniga amarkayga oo keliya inaad qaadataan haddii kale rakaabka diyaaradda saara dhammaantooda waa wada dilaya ciidan dhaafaya ma jirto diyaaradda kale wareeji dhaqso waxaan kaa rabaa raawal bandhi inaad ku dejiso midaas ma dhici karto إلين أنا شيطان نقول فيلم ما يستنا. لا شيطان نقول فيلم ما يستمع على دانه أما حبط أفكار قليلة دقني وحنا أنا أمس راول بندي أنا هذه نحن أنا ديار رح يوقر حساب ساكر هنا في رنا سحمي هذا الكيني شت وحي كلام الله كله ورج ديارته ساعة يسفضي راول بند أنا وودونا حن سمينا شذلك وصيد معنا ور هذا الكي قام مسح بضاف كاقلية أنا هدرتن واحد بدل مصر عكرنا تاس وين توسع حتى أنا هدرتن توسع توسع عند ديارد ويخر حي صدقني يوم وحيك لما يا أخي ما أنت نودي مننا أديك حتى عيل بدر ور ماشي كوكو وين تكون جات ديارد هدي ضربته ما ضحيك كنت جي ديارد لاهور أيوه ما حد هذا لاهور أيوه نقص كيسو 6 دقيقة ما نقدر كرنا الله هورت حتى كنت جي ديارد نقص مع سوقيسة بوسي أنا وقت ما يسنى كالي هلكني ما حد عماش ما انتقننا ما واحد تقنا ما جرته صوبته ضدك الشيطان كفر ما يستان الله سعه هذا ما حد عينه ما حكوا دعي لهاي الله هو رايم كنت جيني هنا الله هو
waddankeena beel waay haddii aan anaga meesha aan ku degno war dadkaas indhaha ku haysa diyaaradda warbixinteeda midii soo gaartay maya mudane waxaan ka soo hadlayaa control roomka amar uma qabtaan inaad diyaaraddan soo dejisaan qofka kula hadlaya waa kabtanka diyaaraddaana waxaan rabnaa inaan soo dejino maxaa yeelay anaga waa nula afduubtay codsiyan waxaan jecelnaha inaa naga aqbashaan maxaa yeelay waa nula afduubta anaga khatar ayaan ku jirna oo sheeg diyaaradda in la afduubtay dhaqsa diyaaradda waa la afduubtay anaga shidaalka wuu nugu yaryahay mar kalean ku celinaya shidaalka wuu nugu yaryahay iga raali noqo anaga garab kuma siin karno diyaaradda waa inaad dib u celisaa waa amar anaga dib uma laaba karna diyaaraddan waxaan ku qasbanay inaan dejino kabtankan iidhib aniga ayaa la hadlaaya soo bixi dhegah halaba mii maqashaa mudane waxaana dad u dagaalamaya xurriyadda kashmiir dibna uma laabanayno marka hore dhegayso mudane diyaaradda ninka madaxbad ma ku dhuftaa iisheeg kabtan waa amar diyaaraddan ma soo deji kartid mudane ninkan bistoolada ayuu madaxa iga hayaa diyaaraddana shidaalka waa uu ku yaryahay haddii aan diyaaraddan soo dejin weynan waa ay qarxaysaa mudane inaan soo degno waan ku qasbannahay dhammaanteen hindi ayaan nahay soo hadal waxaan u baahanahay diyaaradda waddaday ku soo degaysa in la xidho haddii kale khatar aad u weyn ayaa naga soo gaari karto matoorka bidix ma shaqaynayo marka waa inaan soo degnaa adduunka ma ciriiri ku noqda ma dhiman rabaan ka leexda war ka leexda Hello? diyaaradda lahora lagu dejiye ka waranay halo halo haa waa ku maqalnaa maana maqashaa haddaad ii maqashay si fiican ii dhegayso diyaaraddan waxaa saaran 30 muwaadin oo hindiya xorriyadoodana waxay dib u helayaan markii dowladda hindiya badalkooda soo deyso 30 qofood oo burcada ayaga ay gacanta ku haayaan markaas kadib ayaa anigana soo fasaxaynaa dadkan haddii kale diyaaradda ma badbaadayso iyo weliba dadka saaran amarkeena waa inaad qadataan mudane dowladda hindiya ayaa codsi u diraysaa meeshaana waa bakistaan marka waa inaad waqtina siisaa waayahay waqti waa ku siiga fududay howsha
falastiin warayga aamus afkaaga iga xir aamus falastiin maxaa waaye maxaad iga sheegi rabteen ii sheeg dhaqso hadal may waxba ma jiraan waxba ma jiraan kaama yeelay maxaad iga sheegi rabtay falastiin walaalaan nahay hadalaan ku dhaqso ii sheeg maxaa sugay falastiin si ay xorriyaddooda u helaan sidaan oo kale diyaaradda ay afduubteen kuwa diyaaradda afduubtana waxay dhaheen annaga dowladda dadka ugu sarreeya ayaan la hadlaynaa qoladan eerboorka joogta waa iska jibjaab hindiyana waa waddan aad u weyn marka dadkan aad arkayso awood uma lahan inay la hadlaan waddan sidaasoo dhan u weyn iyo awooda markii ii sheeg bakistaan ayaa awood u leh ama qof xil weyn hayo oo si toos ah ula hadli karo wax walba ay ku hagaagayaan halo hadalkayga si fiican waa inaad u dhegaystaa mudana waa kuu sheegay waqti aan u baahannahay waqtina sii war adiga madaxda dowladda ugu sarraysa miyaa tahay waa maya hadalkeenana si fiican waa inaad u dhegaysataa waxaan kaa rabaa xukuumadda bakistaan dadka ugu sarreeya inaad ila hadashiiso isla hadartaa maxaa sugay dhegaystayaal akhbaar wanaagsan aa idiin haynaa waxaana nagala socoteen idaacadda bakistaan warna soo gaaraya waxaa sheegayaa diyaaradda intii in la afduubtay laba nin oo reer kashamiira afduubatay haddana elboorka laahora lagu heystaa dadkaasna codsiya wataan codsigaasoo ah bakistaan in loola hadlaba bacdeen intii ay ula hadlaan arrintana meeshaas lagu soo gebagabeeyo waa arkeenna wixii ka soo bax kuley maqbuul dadka noocan oo kale wax noogu dhiib yaa dhahayaa qaasiga aawe ninkii sekandar ahaa lee sheego halo askari dhegeyso taliye akhbaartaada aniga way ii soo gaartay teyda hadda dhegeyso taliye kuwa oo diyaaradda afduubteen codsiya wataan waxayna dhaheen bakistaan madaxda ugu sarraysa rabnaa inaan ula hadalno waa kasi arrintan madaxda naga sarraysa u sheegaysaa arrintan xota xukuumadda bakistaan intay tallaaba ka qaadaysa annaga waan ka aamusaynaa taas hadda noogu jirtaa codsigaaga xukuumadda bakistaan waa uu gaaray zulfikaar ali muddam taliya waxaa war nagu soo gaaray wasiirka meesha inaas aaday hadda waa wici kartaa madaxa naga sarraysaan ku dhacay dhaqso hawsheena wax yar ayaa ka dhiman sida uu dhaqsiya badan waa in loo xalliyaa taliye hindii way ogolaatay kuwa afduubayaasha waxay dalbadeen way oggolaadeena degdegana haa tali hindiya wadda aan tan ahayn uma furno laakiin arrinka maadaama degdeg ay ku oggolaadeen waxbaa salag leh annagu hindiya safaaraddeeda ayaan ka soconnaa arrinta meel sare ayay gaartay hindiya sidee ku oggolaa diyaaradda in laga afduubto ayada sida aniga ila tahay dadkan qorshe ayay maleegayaan waxay doonayaan bakistaan inay burcad ay ku tilmaamaan ama ay ka dhigaan dadkan waxay rabaan indhaha caalamka inay nagu soo jeediyaan ama ay naceebeeyaan laakiin tali diyaaraddaas halkaan maxay ugu maatay ii sheeg si ay diyaaradaheena u celiyaan laakiin taliyow arrintaa ma fahmin haddii adiga aada fahmin aniga ayaa fahmay waxay ogaadeen weerar inaan ku qaadi rabno waxay kaloo ogaadeen bariga bakistaan si aan u gaarno in ayna furan tahay hal wadda oo keliya waddadaasna waa hawada indiya magaca afduubkan ayay rabaan hawada in ay ku xiraan laakiin middan sidee ku samay karaan anaga muggan dagaal cilaamino ayay samay karaan diyaaradda la soo afduubtay eelboorkeena taallo taas ayaa laga yaabaa dagaal inay kiciso
wax walba ayaa nagu dhici karo dadkaana qorshe kale ayay limaadeen dhammaantiinna waxaa idinka rabaa alaabtaan meeshaan inaad u tagtaan kadibna aniga aad isoo raacdaan dhaqsada maxaad sugaysaan dhaqsada soo baxa kuwa xorriyadda u dagaalamay ee kashmiir hindiya waxay ka dalbadeen way u fulisay koordhowna waxaa ka shaqayn doonaa muwaadiniinta hindiya u dhashay waddankooda inaan dib ugu celinno intaa laga gaadhayana waajibka darisnimada gudanna waanad mahadsantiin mudano anaga diyaarad maana la saaraa maxay dhahay uu celi waxa diyaarad kale maana la saaraa waa maya baskaas min jidda raacaysa xag fariisiya soco maxaa sugay dhaqaaq jaan kaas kii wayno oo aniga isoo badbaadinaya haye adiga iyo inta khaasim dee halgamayaasha guusha aad gaartiin ayaan idinku hambalyaynaa adigana sidoo kale hambaliyo qaasim si fiican i dhegeyso adiga geesi ayaa tahay caqli wanaagsan waad leedahay walaalka caawiyaan la fahmi karin ayaa tahay mugdiga ayaa dadka iftiinka dhex tustaa hambaliyaan ku leeyahay saaxiib waad maasan tahay runaantii guushayna weli qabiyo waaye dadka inaga haystaa markay noo soo deeyaan markaas ayaan guusha gaarnay teeda kale shuruudaheen hadday ogolaan waayaan waxaad ogaatiin diyaaraddan inaan dab qabadsiinayno qorshihii bakistaan anaga aan ka lahayn waan fulinay saas oo ay tahayna ilaa hadda hawada waddankeena ma xirna sababtoo ah aniga waxaa lagaga baahnahay muwaadiniintan waddankooda inaan dib ugu celiyo bakistaan hadda anaga qorsheheena waa ay ogaadeen hadda anaga waxaana laga rabaa muwaadiniintan naftooda inaan badbaadino qorshaheenana aan dhammaystirno Hello? dhammaantiin waxaa idinku soo dhoweynayaa waddanka bakistaan micnaha idinka markiina ila imaado waxaa dhahdiin soo dhowow hadalkayga dhegaysta waxaan idinka rabaa baska inay ugu soo degtaan sida idinkoo bas ka soo degaya gurigiina u socotiin oo kale waad fahanteen soo maha taliya beri walaalkay ayaa guursanaya inaan la hadlaan rabaa marooyi dhegayso inaad sabarta ayaa loo baahan yahay laba waddan ay haysato wadahadalkana waa uu socdaa wixii lagu dhaha oo keliya ayaa loo baahan yahay inaad samayso waad i garto soma hadda annagana ma oggolaanayno wax dhibaata in ladiin gaarsiiyo
dhankaanka baxa soo gala haye idinkana halkan galaya soo dhaqsada hayihii hala soo socda isfudeeya adiga halkan fariiso kaala warya adigana halkan soo galaya isfudeeya maxaa sugaysaan muddo 30 daqiiqo ayaad haystaan reerkiina waa wici kartaan qof walba u baahantaan waa wici kartaa haddaba jaaniskaas ka faa'iidaysta dhammaantiina ay taleefon ma wacanaan haa na keene hore u soco buus qaba adigina u kaadi lambarka ii sheeg 2089 halo walaashay sheeli aad ma fiican tahay sidee tahay waan fiicana diyaaradana waan ka deganay saas hadee tahay waa arrin wanaagsan walaashay burcadina waa nagala badbaadiyey waxaan ku weydiiyaa ad goorma imaanaya ii sheeg bo waxay dhaheen beri ayaan ii fasaxaynaa laakiin ha welwelin taleefanka dad badan ayaa sugayaan anigana waan daminayaa 23 siinagar qad ku xiriiri halow anigaa kula hadlaaya anigu waxaa maqla diyaaradda bakistaan inay tagtay ninkayga ma ii imaanaysaa run iishay qalbiga ii deji oo inta badan iska dhaaf dib aniga u soo laabanayo lambar sheeg deli ayaan rabaa 529 hal halo waa ku salaama aabe ciyaarkee waa kaa qaaday adi sataane waa fiicantaa ma xaaladaada iga waranba aabe wax walba soo okay maahan hooy iyona sooma wanaagsana halo waa badbaadna anaga dowladdaana gacanta nagu dhigtay hadda dowladdaana haysataa maxaa sameeyeyna Number 7. dhaqso taleefankii qabo halo maye aada ma fiican tahay ii sheeg bayaaqay ها wiilkaygu waan fiicanahay aan ku weydiiye waa fiicanna
aan dhibaatana mala beritaan la sodday haddana xaaladdeena oo ka waan ku dhamaama ka murgaya waayo wiilkayga is ilaaliya ay marxaba hooy waryaa is ilaaliyaan ku dhahay hooyo see tahayne waa fiicanee see tahayna hooyo waa fiicanahay dadkaas xabada may kugu rideen mayee hooyo waaye dhibaato inay dhacdaan maqle meesha maxaa ka dhacayna wax dhacay malmardhoona alfasaxaa xabiibti aad iyo aad ayaan iidda kugu hayaa aniga xataa sidoo kale macaankii aad ayaan kuu xasuustaa anigaba sidoo kale inkaygu waan iska wanaagsan adiguna iska taxadir haya wiilkaygii is ilaaliyaan ku leeyahay hay baba arina hay wiilkayga see tahayna hay waa fiican ari see tahayna wiilkayga dhaqsii moo xaafadda hayde hay maamada ku imaana ya muga diyaaradda waa la xiriya la yiri is ilaalsheeya baba is ilaaliya haya is ilaaliya mansuur lambarada la wacday in arkaan rabaa itus taliye 13 lambar ayaa la wacay magaalooyin kala duwan ayay ka imaadeen hal hadaf oo keliyana way leeyihiin dhammaantooda waa inaan ka taxdirno annagana halo taliye shakigaaga wuu saxnaa adiga waxaan ogaaday meeshaan sirdoon fara badan inuu ku jiro ama dadkan ayaa halkan wax ka samaynayo ama gurmad fara badan ayay helayaan waxaad ogaataa hadhow anaga gacanta in nagula dhigaayo taliye waxaa laga yaabaa anaga gurmad inaan u baahanno gurmad adiga waa lagu soo diray waa inay ku soo gaarayaan dadkan waxaa loo baahan yahay middaas inay aaminaan waayahay taliye adiga hadda hadalkayga si fiican u dhegayso waxaan kaa rabaa caddeen dhan inaadan reebin waxaan kuu ballanqaadayaa hindiya cashir lama ilaabaan inaan u dhigno imaatinka bakistaan way ka shalaynayaan boolisaanna badbaadiye rakaabkana iyagaa ka taxadireen wayna fahmeen taas micnaheeda waxay tahay shaki inuu jiro haddee sidaas tahay meeshaas inay ka soo baxaan way adag tahay idhegaysa mansuur albaabka waardiye fara badan waa in la dhigaa cid gudaha u soo gudbi karta habeeraatee ma jirto dhaqsada maxsuus albaabka xiri boosiye dhaqsada idhegaysta taliye duuliyaha diyaaradda wada waxaad ogaataa sirdoon hindii ka tirsan inuu yahay beelaa tahay caddayn wanaagsan ayaanoo keentay duuliyaha qolka oo degan yahan lamarkiisu waa imasa 271 تالي أصدق معه الباب كفر مين مغسلني الباب كفر أنقل نقصه
run ahaantii imaantinka meeshaan imaata waad ku qaldaneed maxaad ka hadlaysaa adiga haye adigaa soo xasuusanaya waxaan ka hadlaaya jaagadan yaa iskale ma taqaanaane waa sirdoonkii kula shaqaynaya saaxiibkaada samraad kow ayaan ka siiyey kadibna biyaha ayaan ku tuuray laakiin adiga halkan ayaan kugu dilaynaa adigoo dhaqdhaqaaq iyo wax xarakaada aan samayn sida ugu dhaqsiyaha badan anaga noo soo raac soo soco mansuur dhammaantood indhaha ku hay hal hal ayaan u ugaarsanayna ogow wax walba meeshan ka dhacay bannaanka lagama maqlin ma fiican tahay adiga sida u dhaqsiyaha badan maahna uga baxna waa tali degdeg wax la ma jiro qorshaha siduu noogu degan ayaan ku bixinaa bari subaxii booliska markay isbedelaan kadib ayaan bixinaa dowladda bakistaan inay wanaag noo samaynayo ayay iska dhigayaan way naga shakisan yihiin annaga waxay rabaan shakigaas inay ka dhabayaan kadibna dunida ay nagu ceebeeyaan laakiin ayaga ayaan ceebeynaynaa
indhaha lagu hayo waya taliye taliye korontada waxay kadib ayay imanaysaa waayahay aniga hadda waxaan ku khasbanahay taliyaha in aan raaco wixii akhbaaraha ila soo socodsay xuduud ayaan u socdaa okay waaya taliye taliya wax walba okay waay taliya deef kood oo message aas noo soo diray qaybta xuseenii hala aado 7 subaxnimo markay tahay xuseen waala haddii u dhow yihiin gangaa xuduudeeda ayay joogaan hoteelka imperior taliya xuseen waalaha fari noogu imaade intus baan arkay basduur aawayna dhankaas iyo xaduudda ayuu aaday wuxuuna igu dhahay haddii uu imaado wax walba waa inaad iga gaarsiisaa waayahay waan ku salaamay taliye oo waan kaa qaaday soo dhawow dhammaantooda adigaa gacanta ku haya soo maahana ilaa iyo hadda baaritaanka ayaa ku socda taliye ciidankan la keena maxaa waaye dhibaato miyaa jirta ii sheegna wax dhibaato ah ma jiraan dadkanoo idinka ay idin ilaalinaa oh waddadantaan sii socon maa ka waddaa adigoo keliya ayaan ku sugayni annagoo dhanna diyaar ayaan nahay baskayaan sii fariisanaynaa xoogaa waxyar u keeday bal adiga baska sabab ee gurigeen inaa noo kaxaysan soo halkan uma imaanina maya amarkaas weli anagana lama soo siin dhammaantiina qolalkiina waad ku laaban kartaan socda maxaa sugaysa taliyaha kale ayaan dhahay idinka isdiyaariya markaad isdiyaarisaanna kadibna xuduudda ayaa idin geynayaa jima aweyna taliye halkan ma joogo xuduudda ganjaasin ayuu aaday laakiin waxaasoo dhanna ma sheegina goormo baxayna saaka ayuu baxay okay waxay ahaataba dadkan indhaha waa inaad ku haysaa kor kala socayaan kuleeya shaqadaada qabsa adiga okay waayah taliye okay waayahay waryaada meesha maxaa ka qabanaysaanna socda qolalkiina ku laabta ilaa hadda amarna lama soo siin amar markiina la siiyaa idin wadeena inta ka sokaysa qolalkiina aad ku laabanaysaa socdahe ka dhaqaaqa meesha idinkeedan la hadlaa socdahe maxaa ka samaynaysaa meesha ka dhaqaaqa halo ها hotel imperial miya ها
taliyaha ciidanka ayaan u baahnaa miigu wici kartaa ها وديار تلي قفا يكون هالله وكم مغلاي سو هذا madaxweynaha ayaa raba dadka diyaaradda lagu soo afduubtay in la soo wado weliba xuduudda sida ugu dhaqsiyaha badan loo keeno waad ifaantay soo maahana ما هذا ده يقول علي madaxweynaha ayaa wuxuu doonayaa dadkii la haystay xuduudda in la keenay in kale inuu kala ogaado sida ugu dhaqsiyaha badan qofkii la hadlaya waa kuma waa gacan yarihiisa waxa kula hadlaya mii maqashaa هلو ور إلى هذا يا أخي هلو qofa dhiman maxaa dhahdana qofa dhiman hal qof ayaa ka dhiman tan suurtagal maahan hala suuradii maxaa sugaysaana orda baxa qoraalkii hala soo hubiyo awaaya taliye micna xooga waa soo socda wax kala hoteelkaaga ma naqanin dhaqso baska fur soco iga tag ay arkine taliye haa wax kasta waa okay ma igu hubtaa waan ka huwaa haya dhaqsada waan bixinaa baska la koro waqtigaa nagu socday bobsiya yaqe विजय विजय भवा
هلو هلو تاليه السردونكي الشعب كأنك ديارة النصارنا ولا السوبت بادي حدودنا يسوق دافين تالي خوش واقباني تاليه وحواي بس كده dhaadhaamiin ayaa tihiin labadiinaba diyaarad sababta meesha u keenteen maxay tahay ma ii sheegi kartiin ma waxayd ila noqotay baashan xunta darteed hintii in wax kasta ugu qaadan kartaana bal fiiriya haddeertan waxyaabaha samayseen 36 qof nagala haysta ayaan u baahanahay afkayga iga xir dadkaas aa dhahaysaan anaga walaalaheena waaye waxaad ogaataan weli xabsigeeda indii inaysan ka soo bixin waxaad samayn kartaana ma jirto waxaan ka codsan hadday ayaga diidaan waa ballan diyaaraddan doqomiye xunta hadda idinka maxaad samaysaan fiiriya diyaaradii saaka ka soo degtay eerboorka lahor ee sida rakaabka indiya ahaa diyaaraddaas waxaa lagu gubay eerboorka dhexdiisa sababta loo gubay wax kale ma aha ee waxaa la doonaya caddeemo fara badan oo diyaaradda ku jira in la baabi'iyo colaadda diyaaradda ka dhalatayna waxay abuuraysa inay isku dhacaan hindiya iyo bakistaan sidaas darteed dowladda hindiya waxay go'aansatay dhanka xuduudeeda hawada inaan laga soo marin oo bartaasna lagu joojiyo sidoo kale waxay go'aansadeen haddii diyaaradaha bakistaan dhankooda ay u soo gudbaan inay gubaan akhyaara warkuna intaas ay ku eegi lacalla haddii aan isku dayno hawadaas inaan xoog ku marno maxaa dhacaya ii sheeg ayaan ku dhahay taliyow i dhegayso haddaan isku dayno hawadan inaan marno waxaad ogaataa dadkaas inay haystaan gantaaladan khatarta badan leh kadibna diyaaraddayna way ridayaan bakistaanna waxay isku dayday afduubkaas inay hindiya dusha ka saarto taasina caddayn way u waysay hawada markii la xiray kadib dhaqdhaqaaqa galbeed iyo bari waa ay istaageen awooddoodii ciidanna waa ay yaraadeen 3 Diseembar 1972
hindiya iyo bakistaan dagaal ayaa dhex maray dagaalkaasna wuxuu ahaa mid bakistaan xaggeeda ka yimid hindiyana way iska difaacday kadibna hindiya waxay laba u kala qaybisay galbeedka bakistaan iyo bariga bakistaan kadib meeshaas waxaa ka dhashay ama ka soo dhex baxay waddan cusub kaasoo lagu magacaabo bangaladesh bangladeshna sidaas ayay hindiya uga go'day